tababarkan ku saabsanaa xuquuqul insaanka oo muddo 3 maalin ah ugu socday magaalada Baydhabo saraakiil iyo saraakiil xigeeno oo ka socday taliska qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa soo xiray oo ka qayb galay taliyaha qaybta 6aad General Maxamed Cadow Cali Sanka mas'uuliin ka socotay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya iyo taliska guud ee ciidanka xoogga dalka xubno ka socday qaar ka mid ah khubarada saraakiishan iyo saraakiil ku xigeenada casharada siinayay ayaa ku dheeraday ka hadalka xuquuqda muwaadinka waxyaabaha ugu muhiimsan oo la yiraahdo wacyigelinta ciidanku haduusan wacyigelin lahayn uusan lahayn baraarujin haduusan lahayn waxyaabaha la yiraahdo wax celin kara inkastoo markii ugu horeysay ciidanku markii discipline ahaan la soo dhisayo asaas la tuso ama la baro wax walba oo celinaya haddana taas ayaan rabnaa annagu ka duuleena taliya inaan kor u sii qaadno aqoontooda habka maaragtay xuquuqul insaanka genderka maxay ahayto child protection ama badqabka caruurta background yar waa marka labaad oo Baydhabo imaanayo training SNA taasna waxay tusaysaa xoogga wadanka iyo maaragtay amniga ina maaragtay muhiimad weyn ay leedahay waxaan uga mahadcelinaa Ministry of Defence iyo taliyaha maaragtay qaybta 6 ee Baydhabo mashruucan waxaa maalgeliyay safaaradda Ingiriiska ujeedadana waxa waaye waan aqoonsanahay ciidanka Soomaaliya gaar ahaan maxaan dhahaa 6th division inay yihiin dad maaragtay aad u tababaran dad maaragtay bulshada u jeejaban oo diyaar ah hawsha General Maxamed Cadow Cali Sanka ayaa gabagabadii waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in saraakiisha iyo guud ahaan ciidanka ay wanaajiyaan la dhaqanka bulshada sidoo kalena ay ka digtoonaadaan in la askareeyo caruurta yaryar waxaan u maleynayaa brief yar baan la siiyay oo ku aadan askareynta caruurta gabadh faryada dhaco oo xuquuqda aadanaha ee runtii ku dhex jiro iyo barnaamijkan la yiraahdo ayaduna genderka waxaan filayaa in intaas ay ku wada dhex jirtay waxbarashadeena waxaan runtii rajaynayaa ama idin rajaynayaa aqoonta halkan aad ku barateen inay noqoto mid aad la wadaagi doontaan ama u sii dejin doontaan lixdamaad oo wakiil ah ka tihiin oo aad matalaysaan oo magaceedii iyo awoodeedii iyo sharafkeedii iyo inay inku aaminto waqtiga intaan la egay aqoontaan runtii aad wakiil uga tihiin taliska qaybta 6aad oo fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo ayaa wada dadaalo xoogan oo ku aadan sidii howlgallo ka dhan ah al-shabaab deegaanadan loogu bilaabi lahaa iyadoo tababaro anshax ciidanka lagu wanaajinayana ay ka socdaan magaalada Baydhabo Muxuddin Xusni Universal TV Baydhabo